lamaanaha sanadkan yaa codan leh in noqdaan ee dalka Malaysia ma yaad siin lahayd ra'yigaagu waa noo muhiim yaa taageerta adiga yaa siin lahayd lamaanaha sanadkan ee Malaysia inuu noqdo lamaanihii fadlan ka dhiibo ra'yigaaga ka dhiibo aragtidaada soo coday hana ka tagin adoona codeynin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلام دم أنا صحبتي ذا قال جميل سجوكتين كسود هذا فيديو عصو فضل ذا عصو تسود وظهر يلو جوكتين عدد أو مستسق قروح بنا يحرتي جل قد أول سعيد ما مواستجبران وقف كله الله نقف كلمة ومسكين كاستجبران يا جايز سود هذا مقال كلو عصو مقال كمانتا وكدو يا مقال الذي حري أنت أنا هرت مقال كأوجد بين أنا أوجد الجريد وحربة أنا هرت يجيم هاد عليو سيد قروح بدل شرفت له aad xalay video aan iga soo galiyo commentiga aad u soo sameyseen ma sha Allah aad u soo codeyseen aad maaragtay commenti badan fikradiina uga soo dhibateen aad iyo aad ay ka mahadcelinayaa jawaabtaasna ma ahan mid maaragtay ani aan sameyn karo kaliya laakiin dad badan sameeyay insha Allah ta'ala saxal igi sheegabo waxa jira gudi arintas qaabilsan oo sameyn doona gudigaasna wuxuu sameyn doona kalfadhi insha Allah ta'ala sidoo xalay kale ay igi sheegay waxa jira barnaamijkaas janaalo badan laga soo baahin doono sida dhalinyarada Malaysia qaar ka mid janaaladooda oo laga soo baahin doono marka aad iyo aad ugu maastiin sida sharafta leh cisada leh aad xalay codanti xalay aad u sameyseen waana ka mahadcelinaya boqol jeer hatta hadda igi mahadceliyo ma u maleynay inaan igi mahadceliyo wallahi alcadiim marka waxaan leeyahay alcamum aad iyo aad u maastiin sida quruxda badan leh sharafta badan leh xalay aad u sameyseen kultub waxa sugtiin waa natiijooyinkii barnaamijkii xalay iyo janaalo kale soo bixi doonaan insha Allah ta'ala oo iyagana ay ka iman doonaan oo codeynta ay ka socon doonto dad qaar oo iska dhahayaan maxaa codeynta yaani aad wadid isee maxaa yaani dad kale maxay soo deyn laayeen sax waay dad kale soo deynayaan ma ahan wax aan kaliya wado hore ay ku sheegaan aniga ma ahan ani kaliya wax aan wado laakiin asxaab badan ayaa jirto ila dahdii doonto oo iyagana janaaladooda soo deyn doona okay marka ma sha Allah waan ku farxay sida quruxda badan leh sharafta badan leh cisada badan leh aad markaas iyada uga soo qayb qaadateen una soo codeyseen waxaan leeyahay thank you so much wallahi full respect and ugu dambeyn guys ku soo dhawaada muuqaal kale oo cusub muuqaalka amaanta wado wuxuu doo socdaa muuqaaladii hore runtii waa muuqaal aad iyo aad xadaarad leh waa muuqaal cajiib waa muuqaal qurux badan waa muuqaal ay idinka jecleen si doontiin dad badan idinka kamid ah aad jeclayso doontiin waa muuqaal hadii aad daawatid aad adiga ra'yigaaga ama commentiga aad soo qordoonto insha Allah ta'ala marka maanta maxaa igi wada waxaan igi wada lamaanihii qarniga yaa waa lamaanaas laba lamaane oo ku nool laba family oo lamaanayaal aan dhaho barkaas kala qaado laba lamaane ayaa rabaa caawa aan igi wada lamaanaas oo aniga aan taageero xushmad aan haayo respect aan haayo dad igu qaali ah dad markasta yaani video daawado dadaan taageero way ma sha Allah lamaanahaas ayaa rabaa caawa inaan igi ag keenan jeclaystay idinkana yaa taageertiin yaa codan lahaydeen inuu noqdo lamaanaha sanadkan yaa codan lahayd in noqdaan ee dalka Malaysia ma aan Soomaaliya dhan waa Malaysia yaad siin lahayd ra'yigaagu waa noo muhiim please hadii aan igi soo koobo lamaanayaashan ku nool Malaysia lamaana kamid ah ama laba lamaano kamid ah tartiisiin doona insha Allah ta'ala yaa taageerta adiga yaa siin lahayd lamaanaha sanadkan ee Malaysia lamaanayaashaas wax kale ma ahan kow waxa waaye lamaana u horeeya waxa waaye saxaaf iyo annu lamaanaha labaadna waxa waaye Nuurdiin KL iyo Shabaadiyo runtii waxa ilaha idinka ayaa la rabaa inaad soo dhiibatiin codkiina waa lamaana aad u qaali ah waa lamaana wada jecel lahay waa lamaana respect u hayno waa inta badan aniga xataa ila hadla waa lamaanayaal oo aan taageero marka runtii muhiimaddu waxay tahay adiga ahaan yaad siin lahayd yaa taageertaa yaa codkaaga siin lahayd sanadkan aad siin lahayd inuu noqdo lamaanihii qarniga ee Malaysia kama hadlaya aniga Soomaaliya dhan kama hadlaya macnaha adduunyada dhan kama hadlaya meel kale laakiin waxaan ka hadlayaa just Malaysia yaa u qalma inuu noqdo lamaanaha sanadkan ee Malaysia runtii waxaan jeclaan doonaa inaad ra'yigiin ka soo dhiibo doontiin commentigana aad u soo qor doontiin insha Allah ta'ala si qurux badan si respect leh si maanta xushmad ku jirto waan iga jecel waa ogahay aniga inaad soo qori doontiin
dadka aan wada caawo waa dad qaali ah saa ogtiinba waa dad qaali ah waa dad maaragtay sharaf iyo cisaba leh marka wax kale ma ahan annagoo codeyntii ka taxraacayna ayaan waxaan jeclaanay inaan codeyno guddoomiyaha oo arrintiisii xalay aan galnay oo ay noo socoto insha allahu tacaala guddigiina ay u socoto waxaa kaloo jeclaan lahay inaan sameyno codeyntii lamaanayaasha ee sanadka Malaysia ee sanadkan ee dalka Malaysia ma ahan lamaanayaasha adduunka lamaan ani goormeed dhinaca lamaanaya insha allahu tacaala waa mardhow kamisu waa arki doontiin dhinacay iyadoo la fadhiyo waa arki doontiin insha allahu tacaala wax dheer maaha oo wax soo socda marka guys haddii la idinku daalin muhiimadda aan ka hadlayno waxa waaye lamaanaha sharafta badan leh ay ii soo bandhignay ayaa la rabaa inaad qof kasta lamaanihi u codeyn lahaa sanadkan 2020 inay noqdaan lamaanaha koowaad ee dalka Malaysia runtii waa barnaamij xiiso badan fadlan ka dhiibo ra'yigaaga ka dhiibo aragtidaada soona coday hana ka tagin adoona codeynin ma sha Allah waan jeclahay qalbiga ka jeclahay ma sha Allah waxa tiin dad aad u qalbi fiican aad u qalbi furan codeyntaas soo sameyn kara waa ogahay xalay barnaamijkeena soo sameyseen caawana waa barnaamij kale oo xiiso badan aad iyo waxaana ka filayaa inaan horta dadkaas aan keenay ma sha Allah ee lamaanaha qarniga ee dad qalbi furan ah saa hore ii ku sheegaba waxa la rabaa inaan committee-gaaga aad ku soo qortid aad u soo codeysid yaa mudan lamaanaha sanadkan ee dalka Malaysia yaa u codeyn lahayd muhiimaddu waxa waa adiga taageertaa yaa u codeyn lahayd yaa si lahayd codkaaga waa arrin aad muhiim marka run ahaantii waan idin jeclahay si markii ugu soo celcelinayaba waxaan kala rabaa horta barnaamijyo badan soo wadaa insha Allah taala markay naga dhamaadaan waxyaalaha hadda jira oo doorashadan iyo waxaan markay naga dhamaadaan waxaan soo wadaa barnaamijyo badan aad u xiiso badan oo maaragtay intiina badan dadkii ka heli doontiin insha Allah taala waa barnaamijyo xiiso leh marka run ahaantii waxaan rabnaa markaan soo gabagabeeyno habeen dambe waxyaalo kale la soo diin doonaa oo doorashada dhankaas kale laga soo diinaa video xalay laga soo diin doonaa insha Allah taala marka waa ogahay inaad keli doontiin insha Allah barnaamijkan hadda ay ii soo gudbiyay waa barnaamij xiiso badan leh insha Allah taala waana keli doontiin marka guys waxaan ka codsanayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar shanaad aan ka codsanayaa inaad comment-gaaga soo qortid aadan baqiilin aad u codeysid lamaanaha adiga aad taageertid lamaanaha adiga aad jeceshahay inaad u soo codeysid inaad maaragtay comment u soo qortid hebel waa muhiim sababtoo ah waxaan ogaanaynaa sanadkan yaa ku guuleystay lamaanayaasha qarniga ee Malaysia idinka ra'yigiina waa noo muhiim waxyaalo badan oo cusubna way soo socdaan hasigu waayina ma sha Allah wallahi alcadiim waxyaalo badan cusub soo socdaan oo maaragtay aad ugu qosol doontiin aad igi farxad gelin doona maaragtay xaflado badanna way jiri doona hadda bariyahan waxaan xanibay oo maaragtay dadka isku socodkii bulsho yareeyay wax kale ma ahan waa cudurka socda maanta kaliya waxa soo dhacday 140 qof 140 qof maanta kaliya soo dhacday marka waad dareemi kartiin wadan 1 maanta soo dhacayso maalinkaas 1 soo dhacayo isku socodku soo noqon karo meelaha xaflada lagu qaban karo say noqon karaan lama ogola dad badan inay isku imaadaan lama ogola maartay dad badan inay maartay meel wada fadhiistaan maqaaxiyi waxa la dhahay laba kursi isku soo jeedisa loo ogolay laba qof inay fadhiistaan dad badan looma ogola marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa bish soo socota haddii dhamaato bish soo socota haddii dhamaato bishan maanta kala socotan hadda socota markay dhamaato aan rajayn doonaa insha Allah taala in la furfuro meelaha dhan oo markaas cudurka u yaraado insha Allah taala si aan rajaynayno si dawladdu sheegtay ilaah un baa wax kasta og inuu yaraan doono ilaah un baa og inuu sii kordhi doonana ilaah un baa taas garanaya marka waqtigaas ayaa waxa soo socda xaflada inaba caadi aheeno aad iyo aad u badan marka waqtiyadaas ayaa ku ogaa doontiin ta kale waxay ka ilaaway run ahaantii lamaanaha hadda aad u codeysiin waxaa ballan ah aniga inaan u geeyo hadiyado inaba caadi ahayn oo aan ugu geyn doono fadhigooda lamaanihii qarniga aniga ahaan ay yihiin ma fahanta marka guys aad iga jeclahay sidaas ayaan kaga tegayaa fadlan haddaad ku cusubtahay janaalkaygan subscribe dhadhadhadha igu sii haddaad hore ila joogteen aad iyo aad u maastaa sida quruxda badan leh oo markasta aad igu xirantahay janaalkaas Jabrani waan idin jeclahay one love